kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo aan la yeelanay toddobaadkan wasiirka wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbedelada cimilada ee Puntland Professor Ismaaciil Diiriye Gamadiid Professor ku soo dhawo telefishinka SBC xaruntiisa magaalada Muqdisho waan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga ah ee aad inoo hortay muxtar aad iyo aad baad mahadsantihiin bahda SBC TV-ga SBC waqtigan aad siiseen fursadan inaynu ku kulanno halkan oo aan ku wadaagno waxyaalaha la xiriira wasaaradda beeraha wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbedelka cimilada. waan hasan tahay professor su'aasha ugu horeysay aan ku weydiinayo waxay tahay waxaad sharaxaad kooban naga siisaa wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbedelka cimiladu waa wasaarad ka duwan wasaaradaha kale ee dalka Soomaaliya ka dhisan. waxay kaga duwan tahay waa wasaaradda kaliya ee midaysa beerihii iyo deegaankii iyo ugaartii iyo isbedelka cimilada halka wasaaradda maamul goboleedka kale ay leeyihiin wasaarado kala duwan oo qaar beeraha yihiin qaarna deegaanka yihiin sida awgeed wasaarad waxa weeye mugle oo runtii aad u soo jiidanaysa shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka Puntland siiba oo ay tahay mandate-keedu inuu ballaaran yahay oo wax ay shacabku dareynayaan oo ummaddu ay ku nolosheeda aasaaska u ah oo ah beerihii wax soo saarkii beeraha iyo ilaalintii deegaanka iyo horumarintii deegaanka iyada oo laga duulayo isbedelka cimilada adduunka maanta ka socda oo wax ka bedelay noloshii adduunka oo dhan oo ah roobabkii iyo waqtiyadii di'i jireen iyo waqtiyada ay isbedeleen taas oo loo aaneeyo carbon dioxide adduunka lagu sii deynayo dalalka warshadaha waaweyn oo ay ozone layer-kii wax ka bedelayaan taana ay la yiraahdo markaa man-made intervention yani waxa bini'aadmigu adduunka sida uu la falgalay waxyaalaha uu ku soo kordhiyey ee horumara iyo waxyaalaha dhibaatada ah ay ka mid tahay tan iyo markii lagu magacaabay xilkan wasaaradda bal maxaa ku qabsoomay wasaaradda intii la magacaabay waxyaalo badan baa ay qabsoomay waa beginner ma oran karo dee wax badan oo hadda oo laga filayo muddo 4 bilooda ilmuhu hadduu dhasho dee waa inuu muddo qaataa inuu gurgurto weeye dabeedna inuu kacakufo weeye dabeedna inuu si fiican u socdo weeye wasaaraddu hadda wasaarad jirtay bay ahayd oo laakiin kala qaybsanaa wasaaradda beerahana gaar bay ahayd wasaaradda deegaankuna gaar bay ahayd waxa ay qabsoomay ugu horeeya waxa weeye inaan labadii wasaaradood ka dhigo hal wasaaradad oo wada shaqeeya oo isku xidhan taas oo aan mideeyey departmentkii ama waaxyihii ay ka koobnay labada wasaaradood hal mid la isugu geeyey maamulkii uu yahay maanta mid kaliya ah taas waa waxyaalaha waxqabadka koowaad ee wasaaradda u qabsoomay waxaa kaloo wasaaradda u qabsoomay in aan soo saaray xiriirkii wasaaraddu la lahayd hay-adaha caalamka iyo ama local NGO ha noqdeen ama international NGO ama UN ama deeq-bixiyaasha oo aan la yeelanay shirar badan kuwaas oo ku qancay isbedelka lagu sameeyey labada wasaaradood oo u arkay inay tahay u fududeynayso waxqabadkii laga qaban lahaa dalka Puntland ama deegaanka Puntland oo runtii aan aad ugu amaanayno madaxweynaha dowladda goboleedka Puntland oo ah madaxweynihii ugu horeeyay gartay in ay muhiim tahay in labadan wasaaradood la mideeyo anagoo waliba aad ugu sii amaanaya madaxweynihii ka horeeyay aasaasay wasaaradda Cabdiraxmaan Axmed Faroole oo ah madaxweynihii markaa arkay in deegaanku uu yahay muhiima oo wasaaradda aasaasay isbedelkii ay martay soo martay ilaa madaxweynihii ku xigay ilaa maanta ay noqotay markaa wasaaraddii ay noqotay mid mug weyn oo dadku ay aad u daneynayaan ama ishu u soo eegayso waxqabadkeeda waa gartay maxay tahay sababta la iskugu daray labada wasaarad ee kala ah wasaaradda beeraha iyo sidoo kale wasaaradda deegaanka duurjoogta iyo dalxiiska sababta la isku daray waxa weeyaan waa muhiimadda ay leedahay wasaaraddanu sidaan u sheegay adduunka dagaalo badan baynu soo marray dagaalada aynu soo marray waxaad la socotaan inaan deegaankeenii lasoo faragashaday in deegaankeenii ayna taladiis ahayn in baddeenii lagu shubayo khashin in kalluunkeenii la dhacayo in xitaa dhulkii lagu shubayo in aan horumar laga gaadhin beerihii oo dadkii colaadihii ay dhulkii wax beeri jirtay ka baxeen
in isbeddel cimilo dhacay oo abaaro iyo isbeddel aynu gallay oo abaarahaasuna ay keeneen macaluul badan sidaa awgeed baahida keentay waxaa weeyaan 1 hektar oo dhul ah waxaa muhiima halkaa hektar in laga yidhahdo maxaa halkaa hektar ka bixi kara ma daaq buu ku habboon yahay ma beeruu ku habboon yahay ma meel xoolo lagu naaxiye ku habboon tahay saas baa waxay keenaysaa maadaama 1 hektar laga hadlayo halkii hektar in hal wasaaradood oo halkii hektar muhiimaddeeda haysata in la abuuro sidaa awgeed markaa haddii beer laga dhigayo iyo haddii deegaan range laga dhigayo oo meel cawsaad ama meel daaqsimeed laga abuurayo wasaaraddii ayaa mandatekeedii u fududeynaysa intii 2 wasaaradood ay dhaholeen marka qofkii shacabka ahaa ee doonayay deegaanka inuu wax ka qabsado ama ilaaliyo ama beer ku abuurto intuu dhowr wasaaradood mar u tegi lahaa hal wasaaradood inay mandatekeeda la siiyo taasoo u sahlaysa hay-adaha deeqda bixiya ama kul shuqul leh environmentka iyo beeraha sida FAO iyo WFP iyo UNDP iyo hay-adaha cinkaas iyo UNIP iyo ECRAF iyo hay-adahaas oo dhan iyo NGO-da localka ah international sida CARE Save the Children you name it hay-adahaas oo dhani iyo kuwa localka maxalliga ah inay u fududaato inay hal meel laga wada duulo oo aqoontii iyo waxqabadkiiba laysku dhafo si markaa waxtarku uu muuqdo wax shacabku ay dareemi karaan kuna naaloo karaan waa gartay bal wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada ee Puntland maxay kaga duwan tahay wasaaradaha kale ee maamul goboleedyada ee dalka waxay kaga duwan tahay sida horeba uu sheegay deegaanka Puntland waa deegaan aad u ballaaran waa deegaan leh bad weyn waa deegaan leh khayraad waa deegaan dhul beereed leh waa deegaanka kaliya markii Soomaaliya ay dawladdii hore dhaqaalaha adag inaga soo geli jiray waxa aynu dhoofino waxaa kow ka ahaa xoolaha waxaa laba kala ahaa banaan muuska qaybta beeraha 3 waxaa ka ahaa faleenka oo ama faraga sariiska ama maydiga ama xabkaha loo yaqaano waa 3 ilood ee dhaqaalaha lacagta adag inaga soo geli jirtay ee lagu qiyaaso GDP-ga waddanka muxuu waddanku soo saaraa sidaa awgeed maadaama ay gobolkaasi uu intaba leeyahay waxay kaga duwan tahay in la mideeyo waxay muhiimad u leedahay in wax soo saarkii iyo horumarintii iyo ilaalintii deegaanku ay meel ka soo wadaan sidaa awgeed waxaan weliba kula talinaa maamul goboleedyada kalena inay sidaa u mideeyaan oo ay sameeyaan iyadoo weliba dowladda federaalka xafiiska environmentka ee office of the prime minister hoos yaalla uu yahay xafiis muhiima oo xafiis deegaankii ku shuqul leh in isagana loo gudbiyo inuu noqdo heer wasiir oo heer wasaaradeed si markaa dalku isula socdo isula jaan qaado maamul goboleedyada iyo federaalku inay noqdaan dad wasaarado isku line ministry la yiraahdo oo shaqo ka wada dhaxayso si markaa adduunka wixii la wada dalbanayo ama laga doonayo ama wixii siyaasad iyo policy ku saabsan ee horumarinta deegaanka ama ilaalinta deegaanka ama horumarinta beeraha ama ay noqdaan wax dalku policy guud oo xeerar guud oo waddanka oo dhan laga fuliyo waa gartay wasiir dhawaan waxaad safaro u aaday dalka dibadiisa sida dalka Talyaaniga bal safaradaasi maxay ku qotomaan safaradaas waxay ku qotomaan wasaaradda mandatekeedu waa 2 qaybood mid waxa weeyaan waddanka waxa laga qabanayo iyo cidda qabanaysa iyo shacabka waddanka ku nool waxa iyagu ay qabsanayaan qaybna waxa weeyaan internationally adduunka maxaynu la wadaagnaa maxaan ka rabnaa adduunka sidee adduunka inoola shaqaynaya maxaynu ka iibin karaa maxaynu diyaar u nahay maxaynu doonaynaa in inaga dhiman oo inaga caawiyaan safarkaygu waxaa 2 qaybood 7 beri waxaan joogay Kenya waxaan kula kulmayay hay'adaha caalamiga ah ama sida World Bank African Development Bank hay'ada Nairobi basekeedu yahay UNDP ECRAF yani hay'ada 12 iyo NGO international sida CARE Save the Children hay'ado badan ayaan kula kulmay hay'adaha waxaanu isla eegnay modality-ga aan ku wada shaqayn doono annagoo isla eegnay maxaad wasaaradda deegaanka iyo beeraha oo hadda mid ah maxaad mashruuc aad ku kala wadeen oo hadda la rabo in la mideeyo maxaa qorshaha inoogu jira oo aan doonaynaa inaad haysaan aynu ku wada shaqayno kaas aanu mar isla afgaranaynay in aanu qaabka aanu wada shaqayn doonaa qaab aanu isla ognahay oo ah qayb transparency ah accountable ah oo ah qaab inay dadka loo danaynayo ama wax loo qabanayo shacabka inay tala ku yeeshaan waxa lagu sameeyo ama laga qabanayo deegaanka hay'adahaasuna aanay noqon wax iyagu iska socda oo meeshay doona wax ka qabta ay noqdaan wax hay'adahaas waxa ay
keenayaan inay dadka deegaanka iyo wasaaradda oo mas-uul uga ah deegaanka inay wada shaqeeyaan oo develop gareeyaan. taas baa ahaa socdaalkii Kenya. socdaalka aan ku tegey Talyaaniga waxaa socdaal aad muhiima. wasaaradda beeraha ee federaalka ayaa mas-uul ka ahayd inay socdaalkaa qabaqaabiso oo aanad ugu ammaanayo wasiirka beeraha federaalka Siciid Xuseen Siciid ciid oo ah runtii nin dhalinyaro ah oo aad u dadaalaya. wuxuu markaa ay barnaamijkaas u ahaa sidii dowladdu u burburtay marketska adduunka ee aynu waxgeyn jiray, sida aan sheegay banaanaha, sida aan sheegay xoolaha, sida aan sheegay wixii beeraha ka soo baxa maynaan ku jirin oo wadal burbura baynu ahayn. marka fikradda waxay ahayd sidee ugu soo noqonnaa marketska adduunka. sida ugu soo noqonaysa waxaa weeyaan carwooyinka adduunka ka dhaca ee lagu soo bandhigo waxyaalaha beeraha bal inaan nala ka muuqanno oo aan geyno. sidaa awgeed anoo uga mahadnaqaya hay-adda UNIDA oo ay ka caawisay wasaaradda beeraha ayaa waxaa la qabaqaabiyey carwo ka dhacaysa dalka Talyaaniga oo sanad kasta dhacda oo 36 sano jirtay oo ay isugu yimaadaan ilaa dad 2 milyan gaaraya oo Kenya iyo wadamo kale in aynu ka qayb qaadanno markii ugu horeysay Soomaaliya, iyaga oo UNIDA ay ka caawinayso. halkaas oo ganacsato Soomaaliyeed oo aad ugu bahadnaqayo oo hadda abuurmay oo iyadoo dagaalka lagu jiro haddana ku dadaalaya inay wax soo saar ka qayb qaataan 10 kambani oo ganacsato ah oo iyagu jeebkoodii lacagta tigirka la baxaya inaan halkaa ka hogaamiyo anoo matalaya magaca ummadda Soomaaliyeed aan ku geyno aan ku u bandhigno halkaa ay markaa ay arkeen inay Soomaaliya is progressing. Soomaaliya waa soo noqotay. aanu soo bandhignay sisintii, muuskii, liintii, basbaaskii intii markaa aanu arkaynay marketka markaa noqonaysay. halkaa waxaa ka abuurmay in dadkii ay soo hiloobaan inay mar dambe maalgashi lagu sameeyo Soomaaliya, inay arkaan Soomaaliya inay tahay waddan dihiin oo beerihiisu ay dihiin horena loo yaqaanay, inaanu markaa dagaalkii laga soo baxay oo loo gudbayo waddan stable oo la doonayo in ay market ka qayb galaan. waxaan aad ugu faraxsanahay isla ganacsatadii tagtay inay markay soo laabteenba halkaa intaan joognay ay heleen contracts ay wax dhoofiyaan oo ay xamar ka dhoofiyeen, sisintii laga dhoofiyey, basbaaskii laga dhoofiyey, muuskii oo hadda u socda wadamada kale ee Turkiga iyo meelahan gaara inaanu hadda boroseska ay ku jiraan dadka ka ganacsada in wasaaradda beeruhu horumariso oo muuskii uu soo kaalinta adduunka ku lahaa soo galo. socdaalkaas waa socdaal muhiima si markaa aan ugu diyaargarino ganacsatada cusubna ugu dhiirigelino in ay ka qayb galaan carwooyinkaas oo kale. waxaa ka soo baxay in wasaaradda beeruhu iyo wasaaradda ganacsigu soo celiyaan carwooyinkii Soomaaliya lagu samayn jiray ee beeralaydu gudaha soo bandhigi jirtay. waxa soo baxa markaad carwadii gudaha soo celiso ee beeralayda iyo iskaashatooyinka arkaan wax soo saarkoodii la arko, markaasaa lagu xidhan karaa carwooyinka adduunkana ay ka qayb qaadan karaan. sax waa gartay. ka wasaarad ahaan waa sida xiriirka idinkala dhexeeya wasaaradaha kale ee maamul goboleedyada dalka? sida aad og tahay environmentku ama deegaanku xuduud ma leh. waxa weeyaan dadku waa kuwa adduunka oo dhan baa u jeeda deegaanku inaan xuduud lahayn. sidaa awgeed wasaaradaha maamul goboleedyada xiriir fiican baa naga dhexeeya, kaas oo runtii annaga aanan isku ammaanayn, laakiin wax muuqda ah. dowladda Puntland ama wasaaradda deegaanka Puntland waxay waqti hore develop garaysay ama horumarisay shuruucdii deegaanka lagu maamulayey, nidaamkii deegaanka lagu maamulayey, kaas oo aad moodo inaan annaga iyo Somaliland wasaaradda deegaanku ay yihiin labada wasaaradood ee aad ugu horumarsan shuruucda iyo horumarinta iyo istiraatiijiyadda deegaanka. sidaa awgeed waxaan la wadaagnaa in aanu aqoonta aan leenahay ama shuruucda aan leenahay aan u gudbino. sida Jubbaland xiriir baa naga dhexeeya, waxaanu u diray shuruucda. South West xiriir baa naga dhexeeya, Hirshabeelle, Galmudug, intaba xiriir wasaaradahaas iyo wasaaraddeeda xiriir baa kala shaqeynaa. waxaanu hadda qabaqaabaynaa shirar inaan isugu nimaadno. xitaa Somaliland baa naga dhexaysa oo aanu xuduud aanan lahayn oo wasaaradda deegaanka aanu leenahay xiriir imanka aanan hore u jiray, laakiin imanka aan doonaya cusboonaysiiyo oo siyaasi ahaan waa arrin kale, laakiin deegaanku inaanu lahayn siyaasad meeshii wax laga qabanayo qof Soomaaliya meeshii wax looga qabanayo cidda wax u qabanaysa hadday hay'ad tahay iyo hadday wasaarad tahay inaan lagu xidhin wax siyaasada ee lagu xidho dadku muxuu u baahan yahay. taana markaa xiriirkaygu aad iyo aad buu fiican yahay, waana kordhinayna.
waa garta oo waxaad sheegaysaa wasaaradda deegaanka Puntland inay xiriir wanaagsan la leedahay wasaaradda gobolada iyo office of the prime minister xafiiska environmentka oo qaabilsan federal level isagoo office of the haddana wuxuu u dhigmayaa ama u taagan yahay inuu yahay wasaaradda deegaanka ee federal government of Soomaaliya. waa gartay wasiir waxaad noo sheegtaa imise waaxood bay ka kooban tahay wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbedelada cimilada ee Puntland imise waaxood bay ka kooban tahay wasaaradda hadda markii la bideeyay 12 qaybood ay ka koobatay waaxood markii hore waxay ahayd 6 iyo 6 bay ahayd waa la mideeyay qaar kuwii iska leeyay waa la isgaleeyay marka waxa weeyaan 12 qaybood ay ka mid tahay oo isla deegaankii bay ka mid tahay horumarintii beeraha ilaalintii dhirta ilaalintii beeraha qorshayntii wildlife iyo biodiversity 12 waaxood oo iskabaya ayay wasaaraddu ka kooban tahay oo aan isugu habaynay oo istaraatiijiyadoodii iyo waxoodba diyaar yihiin. waa gartay bal dhanka dhalinyarada haddii aan u soo noqdo waxaa jirta dhalinyaro fara badan oo shaqo la'aan ah bal wasaaradda dhalinyaradaas ma shaqaaleysiisay waa arrin muhiim ah runtii Soomaaliya boqolkiiba 65 baa lagu qiyaasay dhalinyaro yihiin taana nasiib darro dhibaatooyinkii dagaalada ee dhacay waxay keentay laba masiibo oo dhalinyaradii markay shaqo waayeen inay u tahriibaan badaha oo halkaa ku dhintaan maalin walba dhalinyaro ay mustaqbalka u noqon lahayd oo halkaa ay ku dhibataan in qaarna laga adeegsaday in dagaallo iyo dad gaari ay isticmaalaan oo loo adeegsado arrin aan waddanka horumarkiisa ahayn labadaa arrimoodba waxay keeneen dhalinyaradii inay noqdeen dhalinyaro meel ay u cirkadaan ay lahayn haddii aan u soo noqdo su-aashaada oo anoo weliba arrinta doonaya fursadda ka faa'iidaysto wasaarad kasta oo Soomaaliya ama maamul goboleed waa inay muhiimadda koowaad saartaa dhalinyarada sidii loo hanan lahaa oo looga ilin lahaa in ama lagu adeegto ama ay badda ku daataan wasaaradayda waxaan la kulannay waxaa jira dhalinyaro badan oo ka soo baxday jaamacadaha qaybta beeraha iyo qaybta deegaankaba waxay ka yimaadeen Thailand waxay ka yimaadeen Philippines waxay ka yimaadeen Malaysia waxay ka yimaadeen Uganda waxay ka yimaadeen Sudan waxay ka yimaadeen Ethiopia yani meelahaas oo dhan dhalinyaradii ka soo baxday oo hadda qaar BSc wataan masterate wataan baa buuxa oo wasaaradayda ilaa hadda jooga qaabka aan ugu talagalay marka waxa weeyaan inaanu marka hore volunteers ay ku shaqeeyaan wasaaradda oo qaybaha muhiimkaas ay u kala yihiin aanu ku habayno inay volunteer u shaqeeyaan kabacdina marka mashaariicdu timaado in mashaariicda lagu asaagareeyo dhalinyarada uga faa'iideeyeen taas ayaa policy ka mid ah oo wasaaradda hadda ay ku jirtaa dhalinyarada si aan aanay u lumin waxaan wadnaa wixii la odhan jiray national service wasaaraddeedu waxaan doonaya hormood ka noqoto inaan dhalinyarada u abuurno inay shaqo qaran qabtaan volunteers oo degmooyinka aan ku qorro oo 2-3 bilood ilaa 6 bilood aan u diyaargarayno kharashka yar ay ku noolaan karayaan deegaanada joogo 200 marba si aan dhaqaalaha ugu helo 3 bilood ay soo joogaan 3 biloodna loogu daro iyaga oo marka jaamacadii ay soo barteen iyagoo dadkii dhex galay dadku waxay u baahan yihiin ogaaday aqoontoodii baraskareeyey dabadna halkaa volunteers ku shaqeeyay 6 bilood markaana ay u gudbaan hadhow in la shaqaalaysiiyo oo ay noqdaan shaqaale barabara oo wasaaradda ku shaqeeya waa gartay bal haddii aan u soo laabto dhanka dadka beeraleyda dadka beeraleyda ma siisaan tababaro si ay xirfadooda sare u qaadaan loona helo cunto caafimaad qabta waa su'aal aad u fiican beeraleyda waa laba nooc beeraleydu waa dad markii hore beeraha ka shaqaysanayay oo yaqaana beerta sida loo isticmaalo ama abuurka loo abuuro ama beerta aqoonteeda leh dadna oo weliba laga yaabaa markii hore inay Puntland markaa soo qato example dad deganaa ilaa Kismaayo ilaa Jowhar ilaa Afgooye ilaa Shabeellada hoose oo Beledweyne ilaa Baydhabo deganaa oo markii dagaaladu ay dhaceen ay noqotay Soomaaliya nin walba inuu deegaankiisa u lahaa oo dib ugu cararo marka qaar waxay la tageen aqoon bay la yimaadeen xirfad bay la yimaadeen beeray abuureen markaa Soomaalidu isku dayataa markii la arkay dadkii beeraha aqoonta u lahaado beer abuuranaya haddana dadkii kale iyagoo xoolo dhaqata oo aan beerba ku shaqaleyn ayay iyaga ka garab abuurteen waxa abuurtay markaa beero badan ayay Puntland leedahay oo dhulka biyuhu maraan springiska areeyada lagu abray iyo dooxooyinka taas waxa markaas ku jira beeraley aqoon u leh waxa ay beeranayso iyo beeraley niyadda ka jecel laakiin aan aqoontada lahayn
wasaaraddu marka waxaa weeyaan inaanu tababar u furno waanu ugu samaynaa inaanu tababar u habayno inaanu iyaga midayno oo aagii walba 10 beerood ama 15 beeroodba iyaga ka abuurno iskaashatooyinkaas iyagoo iskaashato ah aqoontii loo wada gudbiyo baahidooda laga caawiyo iyagu ay noqdaan iskaashato ganacsato isu bedesha oo iyagu dhaqaale contribute gareeya waxaan doonaynaa in ummadda Soomaaliyeed ama beeraleydu ay ogaato war adduunka way dhamaatay waqtigii ahaa waxsii adduunka waxaa soconaya maxaad haysataa oo wax kugu daraa waxaan doonaynaa marka dadka shacabka ama ganacsatada ama beeraleydu inay dareemaan oo aanu ku shaqayno falsafadayada aan ku shaqayno wasaaradda deegaanka iyo beeraha waxay tahay in beeraleydu wax la timaado waxa ka dhiban lagu taro shuruucda ay ku dhaqmayaan loo habeeyo duruucda sida iyagu u wada shaqaynayaan network la develop gareeyo halkii beer walba gaar loogu tagi lahaa taa waxaa isu bedelaysa marka in beeraleydu u kala baxaan laba qaybood beeraley iskaashataa oo iyadu iskabta oo u gudubtaage beeraley soo baxda oo dhaqaale leh oo iyagu isku filan oo company form u abuurma oo yara ay noqdaan kuwa adduunka xudhoofinaya oo kuwa yara ka qaadanaya waxay noqdaan beeraley iyadu leh dhaqaale oo dad ganacsatada waaweyn ay leeyihiin oo iyagu isu bedela inay beeraleyda yar waxay soo saaraan iyagu intay gataan ama loo kale ku sii iibiya ama dibadda u iibiya si markaa dadkii ay sidaa ay talajarada sayraanikalka ay horumarkii loo gaadho Puntland waxay caan ku tahay waxyaalo badan dhanka beeraha siyaasi ahaan marka la yiraahdo Puntland waa hooyada ummadda Soomaaliyeed waa meelihii xornimadu ka bilaabateen waa meelihii ilaa daraawish ilaa dowladdii SYL ilaa dadkii hogaankii ka qayb qaateen iyadoo Soomaali kale ka qayb qaadatay waa meeshii lafdhabarka u ahayd waa siyaasi ahaan taas laakiin dhanka dhaqaalaha iyo beeraha Puntland sida hore uu sheegay magaca wuxuu ka yimid the bilad of Punt maxaa loogu bixiyay waa dhulkii uduga Soomaaliyeed ee magaca aynu kula baxnay meesha laga hela waa Puntland waa Fargeysa waa Mayraxda waa Hadiga waa waxa uduga ah Carabaha ilaa Masaari ilaa Chile la geeyay taas waxay tahay waxyaalaha caanka ay ku tahay waxay caanka ku tahay Puntland waa meesha kaliya ee tibirtu si fiican uga bixi karto uga bixi jirtay Soomaaliya tibirta laga beero waxay beeskiisu ahaa isku suban iyo xalin iyo baargaal iyo meel lamida labada meelood ugu weynaadeen mashaaridii hore ee socday tibirtaha meesha ay ka socdeen haddana barboosiga wasaaradda beeraha waxa weeyaan inaanu tibirtii laba jibaaro oo aanu gaarsiino in beeraleyda tibirta ka shaqaysataa in aan tibir la keenin wadanka ee isku filaano oo aan soo gaarsiino waxyaalahaas ay ku tahay waxay caan ku tahay xoolihii waxay caan ku tahay beerihii yani badda ugu weyn ee Soomaaliya inagoo adduunka Afrika kuwa wadanka ugu bad weyn tahay xeebta ugu ballaaran waa Puntland oo labadii badoodba haysata waxay caan ku tahay khayraadka natural resources yaala ee aan wali la taaban haday shidaal noqoto haday bacda kale noqoto waa meelaha adduunka oo dhan uu eegayo Soomaaliya meelaha ay tahay iyadoo meelo badan ay leedahay marka Puntland waa meel Ilaahay ku manaystay inay Soomaaliya laga fiirgareeyo xagga cuntada iyo xagga dhaqaalaha iyo xagga ganacsiga intaba ay ku leedahay base waa gartay wasiir wasaaradda deegaanka beeraha isbeddelka cimilada ee Puntland xiriir ceenkee ah ay la leedahay hay'adaha ku shaqada leh beeraha sida FAO oo kale xiriir ceenkee ayaa in kala dhaxeeya runtii wasaaraddu hay'ado badan oo beeraha iyo deegaanka maadaama labadaba waa leedahay hay'adda FAO waa lafdhabar waa xiriir fiican baan la leenahay hay'adda WFP oo cuntada adduunka qaabilsan xiriir fiican baan la leenahay hay'adda UNDP oo xagga deegaanka wax badan ka qabata iyo wali waxaa jira hay'ado kale oo aan international NGO ah oo iyana wax ka qabta sida Save the Children waxa ka mid ah CARE waxa ka mid ah IOM hay'adahaasna waa jiraan laakiin hay'adaha xagga cuntada aanu base ku leenahay waa hay'adda WFP iyo hay'adda FAO oo iyagu ay yurahan qaabilsanba laakiin waxaa jira hay'ado kale sida World Bank oo kale sida African Development Bank oo kale oo iyo ururka IGAD oo aad u daleelaya hadda in beerihii iyo deegaankii uga qabtaan waxaa ka mid ah jaamacad al-Arab oo hadda aanu doonayno xiriirkii la soo celiyo oo aanu hadda la leenahay xiriir fiican timirtoo kale meelaha hadda aanu ka keenno waa Cumaan Syriska laga keenaya timirta waa Sacuudiga waxaan hadda u gudbaynaa meelaha Afrika ka mid ah marka waxaan xiriirkayga aan leenahay hada caalamigu aad buu u weyn yahay aad buuna u sikacaya ilaa hadda sida inta aanu abuuray 4 bilood 5 bilood aan wasaaraddeedu ay hadda
aan mas-uulka ka ahaa tallaabo weyn maalisto weyn ayaan qaadnay oo xidhiirka caalamiga ah ee wasaaradda hagaag daawadayaal weli waxaad dhegaysanaysaan waraysigii gaarka ahaa oo inagu marti ahaa wasiirka wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbedelada cimilada ee Puntland Professor Ismaaciil Deeriye Gamadiid wasiir haddii aan u soo laabto dhanka Puntland wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbedelada cimilada ee Puntland waxaa la aasaasay 1 June 2009 bal waxaad nooga warantaa marxaladaha kala duwan ee ay soo martay wasaaradda marxaladaha saan hore u sheegay runtii waxaan aad uga mahadnaqayaa madaxweynihii waqtigaa jiray Cabdiraxmaan Axmed Faroole oo magaca wasaaraddan gartay inay tahay muhiim waxaan aad uga roomayaa wasiiradii ugu horreeyey ee soo bilaabay wasiir Cabdiqani oo ninkii ugu horreeyay lagu bilaabay iyo wasaaradii wasiirada ka dambeeyay wasaaraddan marxalado badan bay soo martay markii la abuurayay dadku ma fahamsaneen oo waxay lahayn wasiiradu waxay doonayeen in lagu qoro maaliyadda iyo meelahaas ay jeclaayeen ninka lagu qoro wasaaradda deegaanka wuxuu arkay in cid la dhigay laakiin isbedeladii ka dambeeyay markii la soo arkay wasaaraddii way kobacday wasiiro aad muhiim oo wax badan ka qabtay oo ilaa 4-5 wasiira wasiir guuleed baa ka mida wasiir cali cabdillah ka mida wasiir cabdallah ka mida oo hadda aan ka bedelay xilka wasiiradaas cabdiqani wasiiradaas wax badan ayay ka qabteen waa xagga deegaanka iyo beerahaba oo wasiiro badan baa soo bedelay wasaaradda markaa deegaanka oo marka hadda liilka u ahayd markasaga runtii way soo kobcaysay marba mar ka dambaysa mar bay guri ijaara ku jirtay mar bay guri hadda ay leedahay iyo haro ay leedahay ka shaqaynaysaa mar bay mashaariic ay fulinaysaa hadda oo waxtar u leh shacabka Puntland oo la arkay waxtarka ay leedahay oo adduunku laga aqoonsaday wasaarad leh capability wax la yiraahdo tayo leh ay ku haranto mashaariicda ay qabanayso waxaa jira wasaaradda shaqaalahoodu marba bilow u ahaa maanta waxaan ku faari karaa wasaaradda deegaanka iyo beeraha waxaa jira dhalinyaro gabdho iyo wiilalba leh oo weliba gabdhuhu aad moodo inay mararka qaarkood kaba horeeyaan wiilasha oo aad u tababaran oo aqoontooda leh oo arnimadooda leh oo hanan kara mashaariicda fulin kara dejin kara soo samayn kara mashruuca dejin kara ilaalin kara fulin kara tayayn kara wasaaraddu markaa maanta waxay gaadhay meel ay ku fahananto ama ku gudbiso waxa loo igmaday oo ay kalsooni ku qabato inay fuliso waxyaalahaasuna ay keentay tayada shaqaalaha waxaa ka mid a waxyaalaha aan arag karo oo ay soo marxalatay 2017 waxaad mogtay abaar baa dhacday waddanka Soomaaliya oo ka dhacday waqooyiga ilaa waqooyi baa laga soo hayaamay ilaa Itoobiya laga soo hayaamay ilaa mudug ilaa galmudug ilaa beledweyn waxaa la isugu tegay eyl iyo Beterbeila warihii lagu baasaday hay'adda fulisay wasaaradda fulisay waxay muujisay wasaaraddu markaa inay tahay kuli hadda ka dambeeyna kuwa kale oo badan ayay fulisay haddana gacanta ku haysaa marka wasaaraddu marxaladaha hadda ay marayso meel lagu faani karo ayay hadda maraysaa welise waxbaa u dhiman welise waxbaa dhiman mar walba waxay ku jirtaa in la horumariyo waxay gaari doontaa meelo ka duwan maanta meeshay joogto after 5 years ama 3 years ama 2 years 1 year ka hore waxaan filaynaa in dadku dareemo isbedel weyn oo ku saabsan waxqabadka wasaaradda waa gartay bal dhanka shaqaalaha ka waran isla xisaabtanka shaqaalaha wasaaradda maadaama horay aad ugu dhawaajisay in 6 bil kasta shaqaalaha la xisaabtami doono waxa u qabsoomay haddii ay rabaan in xirfadooda kor loo qaado kale aad siinaysan tababaro kale iyo daraasad bal ka waran isla xisaabtanka shaqaalaha xisaab shaqaalaha markaan wasaaradda imid waxaan la kulmay shaqaale waa laba qaybood shaqaale volunteers oo aan lacag ba qaadan oo volunteers ku shaqeeya shaqaale aqoon leh laakiin waad ogtihiin dhaqaalaha waddanka iyo wasaaradaha ma badna shaqaale ku shaqaynaya $50 ama $80 ama $100 ugu badnaan waad garan kartaa shaqaale baahidiisa qoys ahaan iyo waxa uu helayaa isma dheelitiraan waad garan kartaa gaabka ku jira sidaa awgeed shaqaalaha caynkaasa laguma xisaabtami karo inuu fuliyo mandatekii loogu talagalay waayo dee wasaaraddu ma hanan karto baahidiisii laakiin markaan aragnay wasaaraddu waxay leedahay waa wasaaradda keliya ee qofka shaqaaluhu marka aroortii soo galo taabanaya suulkiisa meesha inuu shaqadii soo galay hadhowna ka baxayo oo technologiga caynkaas leh waxaa markaa noo qorshaysan wasaaraddii ilaa waqtigii la abuuray dhalinyaro ama dad iska jooga oo aan marra dallicin oo halkii taagan mushaarku halkii taagan yihiin taana waxa weeye qofka dhalinyaradu wuxuu u baahan yahay ama adduunka bini'aadmigu tadawur
inuu qofku waxa weeyaan reer buu yeelanaya jaamacad inuu korsado u baahan yahay mustaqbal buu doonaya maxaa lagu hayo waa in profilkiisa loogiya marka wasaaradda waxaa hadda u wada qorshe soo dejinay in profilkii shaqaalaha performance profile baa layihahda performance wixii uu sameeyey 6 biloodba la qiimeeyo dadku isku qiimo maaha isku aragti maaha dad baa hawshoodu akarnimadu muuqanaysa dad baa dhexe dad baa la jiidaya inaan markaa kii in la jiido na kor loo qaado kii aqoon badan xirfadiisa kor loo qaado kii oo reer shaqeeyana niyadiisa kor loo qaado oo u dalacaad iyo waxbarashada ku helo profilekaas performancekaas ayaa wasaaradda qorsheeda ku jirta oo aanu bilownay oo aan doonaynaa marka ay si fiican aanu mashaariicda u bilowno inaanu aad u taabagelino taasoo aan doonayno wasaaradaha kalena runtii ay wasaaradda dowladda puntland hadda ka dhisan madaxweyne deni hogaaminayo waxa weeyaan dowlad doonaysa in lala xisaabtamo shaqaalaha wasaaradda shacabku ay arkaan accountable noqdaan shacabka laftigeedana lala xisaabtamo oo maxay iyagu dalka iyagaa leh maxay kordhinayaan shacab ahaan ee aanay oran uun wasaaraddu maxay noo qabatay laakiin maxaanu wasaaradda la qabanaa maxaanu shaqaalaha la qabanaa ganacsatada puntland oo hadda aanu encourage garayno waxaa jira imanka wasaaraddu waxay leedahay waxaa jira hay-ado dad private ah sida deegaanka kale oo dhirta kobciya ilaa laba hay-adood oo dad private leeyihiin wada shaqay baa naga dhaxaysa qaybtii iyagii inaan horumarno kor u qaadno waayo damoor iyagu hantaan annaga waxay noo fududanaysaa waa qabadkayagii iyaga tababar u furo gaarsiino meesha ay doonayno marka wayaan dhalinyarada iyo performanceka aan doonayno qaabkaasaan ugu talagalnay waa gartay wasiir qaybihii dambe barnaamijka aan ka soo gaarnay dhowaan waxaad goobjoog ahayd deeqda shiina oo ka timid dalka China oo loogu talagalay dadka barakacyaasha ah iyo dadka danyarta ah in la gaarsiiyo bal deeqdaasi goobjoog ayaad ka ahayd bal ka waran xiriirka dowladda China iyo Soomaaliya ka waran xiriirka deeqdaas waxay ahayd runtii dowladda China ka hor intii burburka xiriir fiican baa Soomaaliya la lahayn waxyaalo badan oo mashaariic oo lagu faari karo ayay inoo qabatay wadada dheer ee Soomaaliya isku xidha China inoo sameeyey istaadiumka xamar China inoo sameeyey isbitaalka banaadir China inoo sameeyey waxyaalo badan oo muhiim ah oo lafdhabarka dhaqaalaha ayay wadaga ka jireen intii burburku dhacay xiriirkii waa go'ay hadda oo aynu dowladnimadeenu soo taagayso waxaa abuurmay in xiriirkii la soo celiyo madaxweynuhu Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo markuu tegey si fiican baa loo soo dhaweeyey waxaa loogu deeqay oo madaxweynaha China iyo dowladda China ugu deeqday maadaama laga soo kabanayo marxaladii emergency-ga in raashin 6 bilood soconaya oo deeqa uu siiyo raashinkii ugu horeeyay buu yimid waliba raashinkaasu waa dhowr qaybood isugu jiraa waxa weeyaan iyana hay'adda WFP oo iyana qayb ka qaadatay raashinka wixii bariis iyo saliid dibadda ayaa laga keenay wixii galley ah waxaa laga iibiyey beeraleyda through WFP baa la mariyey lacagtii lagama keenin dibadda si ganacsatada loo kor qaado marka waxa weeyaan raashin isugu jira kor u qaadidda beeraleyda wax soo saarkoodii oo ay lacag helaan iyo macaawino kaasoo 18 dal gobol ee Soomaaliya lagu saleeyay kaasoo anaga wasaaradda beeraha iyo wasaaradda gargaarka aanu kala wareegnay wareejinta ka qaybdanay haddana lagu jiro qaybinteedii oo la gaarsiinayo gobol walba iyadoo mar walba la horumarinayo dadka barakacyaasha iyo dadka baahida ee danyarta ah ay priority yeelan doonaan waa wax Soomaaliya oo dhan loogu talagalay waana wax soconaya ilaa 6 bilood sida uu noo sheegay safiirka China waxaana filaynaa inay si fiican u gaadho oo dadkii loogu talagalay ay gaadho bal sidee lagu gaarsiin karaa deeqdaas dadkii loogu talagalay in la gaarsiiyo 18 gobol ee dalka sidee lagu gaarsiin karaa deeqda Soomaalidu waxay ku maamahdaa nituu soo socday isaga yaqaana waxa weeyaan gobolada qaar waa la gaarsiin karaa oo maamuladii gacanta ku haya waa dhul nabadgelyo waa dhul dadkii la gaarsiin karo maamulada gobolada deegaanada qaarna dee dowladdu gacanta kuma hayso oo way ku adkaanaysaa laakiin waxaa jira dad Soomaaliyeed dadka gacanta ku hayaan waa dad Soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee si loo gaarsiiyo waa la gaarsiin karaa oo dadka Soomaaliyeed way soo socdaa haddaba beeraha soo baxa khayraad ka soo baxa deegaanada ka soo baxaan aan dowladdu gacanta ku hayn sida awgeed raashikii waa la gaarsiinaya waa gartay guntii gabagabadii barnaamijka aan soo gaarnay wasiir maxaa baaqa u daraysaa dhammaan beeraleyda Soomaaliyeed waxaan u dirayaa marka hore waxaan doonayaa inaan dareensiyo ama aan la wadaago waxaan hadda wasaaradda beeraha ee federaalka iyo wasaaradaha anigu aan mas'uul ka ahay Puntland
waxaa la wadaa in iskaashatooyinkii beeraleyda la soo celiyo way jiraan magacahaan bay u jiraan laakiin la develop gareeyo oo iskaashato beeraley ah ama iskaashatada qaranka oo hadday kalluunka tahay hadday beeraha tahay hadday gaadiidka tahay sidii ahaan jirtay lasoo develop gareeyo laakiin aanay noqon wax nomination ah oo qof layska magacaabo xamar jooga oo la yidhahdo waxaad ka mid tahay iskaashatada beeraleyda ee galmudug ama iskaashatada beeraleyda ee south west ama puntland ay noqoto maamul goboleedyadu inay sameeyaan inay iskaashatooyinkii dhisaan maamul waliba dabadna kii qaranka la isugu yimaado halkaa laga develop garayo ama laga horumariyo iskaashatooyinkii ganacsatada beeraleyda marka in la tixgeliyo oo kor loo qaado beeraleyda dadka inagu waxaynu nahay dowladdeeni weliba adkaan ganacsatada ayaynu ku noolnahay waxaynu ku noolnahay Soomaaliya lacagta remittanceska dadka dibadda jooga ay soo galayaan ayaa halka lagu soo gaaray taas marka waxaan in la riili geliyo dadka ganacsatada ee ama beeraha ku shaqeeyaan ama kalluunka ku shaqeeyaan ama dhismaha ku shaqeeyaan in la hirgeliyo sida loo hirgelinayaa waxaan anagu soo jeedinayaa aan u jeedinayaa dowladaha maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkaba dadka wax soo saaraya beeraleyda waxa ay dhoofinayaan inaan cashuur la saarin laakiin waxa ay keenayaan cashuurta la saaro oo loo fudeeyo in marketka ay la tartamaan kii dibadda westernka in iyagii kor loo qaado tayadoodii in loo tababaradoodii kor loo qaado in iyagii nidaamadoodii iyo shuruucdoodii kor loo qaado in ganacsatada beeraleyda iyo ganacsatada kale ee arrimaha kale ku jirta ama kalluunka haato ama ganacsiga kale ha noqoto ay noqdaan in la abuuro ganacsatada waxaan doonayaa si gaar ah u sheego warshado yaryar waxaa jira ganacsatada Soomaaliyeed oo lacag leh oo had iyo goor waxay ka fakaraan qalab inay keenaan dhismo inay keenaan sibid iyo baas inay keenaan warbaasta iyo sibid iyo dhagax qura loo baahnaa warshado yaryar oo dadka shaqo geliya waad abuurtaan malaayiin dollar baa ganacsatada leeyihiin warshado yaryar oo dadka shaqo geliya oo wax soo saar keenina inay gabaal geliyaan kuwa lacagta leh beeraleydiina in saa loogu kor qaado oo waliba beeraleyda dayarta kor loo qaado oo seedskoodii iyo marketkoodii iyo noloshoodii inta ay ka soo kabanayaan aad looga wasaaradaha ama maamul goboleedyada ama dowladda federaalku ay gaarsiiso waa mahadsan tahay wasiir guud ahaan barnaamijkii gaarka ahaa oo maanta inagu marti ahaa wasiirka wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbedelada cimilada ee Puntland Professor Ismaaciil Diiriye Gamadiid halka ayaan ku soo gabagabeynayaa professore aad u mahadsan tahay waan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga ah ayaad inoo hortay muqtaar aad u mahadsan tahay SPC iyo bahda SPC aad u mahadsan tahay fursadda qaaliga ah aan ku fulanay aan ku wadaagnay xogta iyo dareenka aan qabno inaan umada ugu gudbino aad u mahadsan وهجاك داود الجود هان أنت ينكسو جوجوينيا برامج كي جارك أها ونجوم مرتاحة وزيرك وزارة الدجان كبيرها يزبدلها عملة بنتلان بروفيسور إسماعيل ديرية جمديد برامج كو حيد لسه عدسيني يعني ومختار عبدي هذا حاجة كاميرا ده وحاجة ساعد سعيد كي عبد الرشيد سنديرة حاجة فرسمة روحه وعمر حسن بولاء أنت برامج كان برامج كسحية ندب وكل مدونة قاري وحين كجت جيا سداسيو نبت جليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.